magacayga waxaa waaye Shucayb Cabdullaahi Xaaji oo ka tirsan xarakada Al-Shabaab. magacayga afgarashadana waxaa waaye Axmed oo waxaana u qaabilsanaa degmada Wadajir khaasatan waxa aan shaqo gacanteyda ku qabto waxaa waaye mid qaar ka tirsan suuqa weyn iyo kuwa oo luuqan oo isbitaal Madiina ka mid ah. tan hadda oo dawladda ugu dambeysay ay soo qabatana waxaa waaye mid oo siliga Ameerikaanka ah. gabar sida noo sheegay oo ahayd maxaa la dhihi jiray erge ahayd oo shaqada ugu dambeysay ahayd gabar erge anagoo oo dul tagnay shakhsi ahaan aniga dul tagay biskoolada iga kidibtay wiil kale asla jirnana ay ka kidibtay. markii aan soo baxnay kabacdi anagoo soo socono oo shaqada ka soo dhamaanay waxa ku soo dhacnay bar control ee leedahay dawladda meeshaas aan nagu soo qabtay. markii koowaad horta waxa ka codsanaa ehelka iyo shacabka oo maxaa la dhihi jiray gacanteeda sababsadeen inay markii koowaad horta iska caafiyaan. tan labaad waxa ka codsan lahaa maamulka iyo dawladda ayagana maadaama aan fikirkeygu iska ahaa fikir iska qaldan oo ugu dambeyn macnaha waxa ka codsan lahaa inay iska caafiyaan. bismillaahir rahmaanir rahiim. anoo Ismaaciil Maxamed Awees oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab oo magaciina naas dilay yaqaan Yaxye ayaan u xil saarnaa degmada Wadajir iyo Dharkiinley. fal ayaan ka fulir rabnay meesha beerta jaadka islaan jaadooley oo ka tirsan ergada dawladda Soomaaliya. falkii markii oo dhici waayay kadibna oo naga ka tibinay kadibna waa ayaan ka soo noqonay ciidamada dawladda ayaa gacanta nagu dhigeen. kadib shacabka Soomaaliyeed waxa wareysana cafis iyo dawladda Soomaaliyeed oo falkan nagu soo qabatay idina cafis ayaa weydiisana. waxaan idin sheegayaa in raggaas oo aysan ii dil rabeen nafteedu u soo duuleen. waxaan idin sheegayaa waxaan ka hoos joogaa ciidanka booliska soo qabtay ama hadu celinayaa. waxaan rabaa in macnaha ii sheeg meel la geeyo ilmahayga iyo aniga man la meeleeyo. odagayga waa boolis waxba ma haysayo 7 caruur aan korsanayay marduuf jaad aan kadaayay nafteedu u soo duuleen in meel ay taala raba. madaxweynaha uu sheegaya rasuul wasaaraha uu sheegaya baaq dheer aan diraya wax la qabto maadiyo kaada ma aqaano 7 ciyaalan korsadaa. ciidanka amnigu ayagoo ku jira roondooyinkoodii caadiga ahaa waxaa u suurta gashay inay ku dhacaan nimankan oo raba inay gabadha dilaan. waxaa qadar rabbi ilaahay qoray in bistooladihii labada ahaa ay isticmaalayeen ay u shaqayn waayeen inay ku dilaan gabadha oo ay u dhici weysay balse ay isku dayaan ayagu inay dilaan. ciidankii ayaana gacanta ku dhigay aad iyo aad ayaan uga mahadcelinaynaa. waxaad arkaysaan saddexdooduba sida ay waraysiga ama baaritaanku ay laamaha amnigu sameynayeen 3 maalmood la soo dhaafay ku ogaadeen inay nimankan falal dilah oo tobaneeye ka badan dhowrkii sano la soo dhaafay ay degmadan ka geysan jireen. laga soo bilaabo 2014 ilaa iyo hadda qiyaastii waxay dadka ugu badnaa oo degmadan lagu dilo bay ku dili jireen sida ay ayagu qirteen dad badan oo iskugu jira saraakiil shaqaale dawladeed wasaaradaha dawladda ka tirsan ciidanka dad shacab ah oo runtii ama xarumaha dawladda u imaan jiray howlo shaqo ama howlo ayaga u private ama ka ganacsada goobaha kala duwan intaba waa ay dileen. waxaana ay ku dileen qaybtan galbeed laga soo bilaabo Madiina iyo Wadajir iyo Dharkiinley iyo Kaxda iyo meelo ka tirsan degmada Waabari intaba waxay ka geysan jireen falal dilah. waxaana saddexdooda mid kamid ah uu isticmaali jiray mootadan aad arkaysaan oo dhabarkayga taala oo kamid ah ama uu qofku isticmaalayo isku ekaysiin jiray qof ganacsada ah oo mootooyinka ku shaqaysta laakiin mootadan ay ahayd mootada ugu badan ee lagu kala gudbin jiray hubka ee nimankan u isticmaali jireen inay ku gumaadaan cadowga Soomaaliyeed ama cadowga ay raahdeen shacabka Soomaaliyeed.